bishii May sanadii 1991 irbixiyeen ka tirsanaa midowga Suufiyeed laguna magacaabo Sergey Kriklev ayaa u soo qalab qaatay sidii uu cagaha dhulka uga qaadi lahaa dayax gacmeed uu ku gaadhayay saldhigga hawada sare ee Mir kaas oo dhulka ka sareeya 390 kiiloomitir wax walibana si dabiici ah ayay u socdeen laakiin waddankiisii midowga Suufiyeed ee uu dirsaday hawada sare muu noqon mid sii jira wuxuuna u kala qaybsamay 15 dawladood bishii August sanadii 1991 ayuu midowga Suufiyeed burburay kuna beegnayd 2 bilood kadib markii cirbixiyeenkan hawada loo diray wuxuuna arrinkaasi ku noqday Sergey dhibaato markii uu maqlay cod uga yimi dhulka laguna leeyahay joog hawada sare ma hayno hanti lagugu soo celiyo dawladii ku soo dirsatayna way burburtay safarkii loogu talagalay Sergey waxa uu ahaa inuu 5 bilood joogo saldhigga hawada sare ee Mir waxaana safarka ku wehelinayay 2 cirbixiyeen oo kala ahaa Helen German oo ahayd cirbixiyeen Ingiriisa iyo saaxiibkii oo lagu magacaabi jiray Anatol Artasbaraksi waxayna iyagu dib ugu soo noqdeen dhulka laakiin Sergey waxa uu ahaa mid keligii saldhigga ku hadhay wuxuuna daawan jiray 4 xilli ee sanadka oo isku daboolaya dhulka dad seexanaya jeex ka mid ah dhulka oo ay habeen u noqonayso iyo qaar kale oo ku foofaya shaqooyinkooda oo ay maalin u noqonayso laakiin waxaan isbedelani waa xaruntan hawada sare ee uu jeelka u ahayd Sergey taasoo u muuqatay inuu joogi doono inta noloshiisa ka hadhay wuxuuna ahaa cirbixiyeen xirfad sare leh maxaa yeelay marar fara badan ayuu hawada sare tagay laakiin murqihiisu waxay bilaabeen inay jilcaan oo ay ku dhawaadaan inay shaqada joojiyaan si taalamida wuxuu khatar u galay inuu kansar ku dhaco iyo inuu la kulmo shucaacyada hawada sare waxaana u bilaabmay sanadkii labaad ahaana 1992 wuxuuna ahaa Sergey mid ku wareegaya dhulka laakiin waxa muhiimka u ahayd waxay ahayd inay dawladda cusub ee Ruushka ay bilowday inay iibiso xarumihii ay ku lahayd hawada sare waxayna Ustari ka iibisay xarun qiimaheedu gaadhayo $7 milyan Jabaanna waxay ka iibsatay xarun TV oo ay qiimaheedu gaadhayo $12 milyan laakiin wax safar ah oo loogu soo celinayo Sergey looguma deeqin dhamaadkii bishii Maaris ayuu Sergey maqlay war ka farxiya wuxuuna ka soo gaadhay dhanka iyo Jarmalka waxaana ugu deeqeen $24 milyan si loogu soo celiyo Sergey looguna bedelo cirbixiyeen kale halka uu joogo markuu hawada sare joogay wax ka badan 300 oo maalmood ayuu dib ugu soo laabtay dhulka wuxuuna ahaa mid aan wax dhaqdhaqaaqa samayn karin wuxuuna sitay calankii midowga Suufiyeed oo ahaa dalbari hore burburay waxaana lagu naanaysyo badan oo ay ka mid tahay ninkii waqtiga ku safray iyo muwaadinkii ugu dambeeyay ee Suufiyeed ka ahaa markii hawada sare loo diray isagoo muwaadin Suufiyeed ah dhulkana uu dib ugu soo noqday isagoo ah muwaadin Ruushiyaan dawladdii Ruushka ee diidaneyd inay dib ugu soo celiso dhulka waxa ay guddoonsiisay billada geesinimo
Shut.